runtii mid farxiyo waan ku taageersanahay oo gabdhaha Soomaaliyeed runtii ammaan iyo waxay mudan yihiin dhiirigelin runtii 20 sano ugu dambeeyay dadka suuqyada jooga oo dadka waxna soo bar waxay ahaayeen gabdhaha Soomaaliyeed ee qiimaha badan haddana gabdhaha Soomaaliyeed ee xaq ay leeyihiin kama gabdhaha Soomaaliyeed markasta guriyooda ayada burburiya runtii gabar waxaad arkaysaa maalintii habeenkii iska wareegaysa ama tusaalahan wiilkii dhibaysa oo leedahay cadaani chickens waxa iga soo qaada cunto hiblaayo wiilkiina uusan macquul aysan ahayn in yani qarashkii oo bayski loogu talagalay beelka ay ka duwan tahay taasina waxay soo dadejinaysaa in uusan gurigaasi yani uusan noqon mid waara haddana Soomaalida ma jirto meel macadiyad oo wax lagu barto runtii Soomaaliya macdi rasmi ah oo trainino lagu qaato ma jirto yani intii dadku istoon hadda Malaysia kala wuxuu ahaa wadanka adduunka ugu furiinka badan maatin magandi markuu yimid ra'iisul wasaaraha wadankaasi wuxuu bedelay framework nolosha dadka dhan li'annahu qoysku waa asaaska bulshada waa unuga dawladdu waxa la yiraahdaa qoys ila qaran guriga haduu san wanaagsaneen lama helayo yani qaran wanaagsan beeska waxa way guriga wuxuu sameeyay yani in trainino uu sameeyo iskoolaad gurig lagu baranayo tusaalahan 3 bilood qofka ay wixii la joogaysaa ninka iyo xaaskooda si indirect oo waxbarasho camal ah qof kasta waxa soo baxaya dabeecadda rasmiga ah hadii hadhowd isku qanceen dhaxan anagu dabeecaddaas iyo dabeecad hiblaayo dabeecadda saleed aniga dabeecadda san isku qaadanay oo isku qaad laakiin hadii dabeecadoodu ay noqoto mid kala yani kala duwan runtii way kala tagayaan marka aniga waxaan dhiirigelinayaa runtii in la sameeyo meel يعني arrimaha qoyska runtii waan bogaadinayaa guri sama jirta oo runtii yani kacban cusub oo Muqdisho u bilowday aan rajaynayo in isbedel weyn ay sameeyaan marka sida wax culumta siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo beeraha loo baranayo waa in gurka loo barato runtii waa wax aan bogaadinayo xagaag waliga ma guursatay aniga waliga ma guursan farxiya waa tahay waliga maadan guursan laakiin hamigaagu ama niyadaadu waxa ku jira waxay tahay inaad mar uun qoys samayso aadiyaad waxa laga yaabaa intaadan hadda guri galin dumar fara badan inay xiriir kula sameynayaan ama aad kula sameynayso bal inta aad la sheekaysanayso hadba qof kala gidisana laga yaabaa habeen walba inaad la sheekaysato maxaa ku baxa runtii gabdhaha Soomaaliyeed qof kasta wuxuu leeyahay sida waji gooni u leeyahay aqli gooni iyo waxyaabo gooni ku rakiban runtii anina wali ma guursan waxaan ku jiraa daraasad oo ku saabsan siyaasan Soomaaliya waxay tiraahdaa guurka inuu ka halaabo duco waay li'annahu guurku waa gudmadu gacan la gal gudmadu yani gudmadu hadda gacanta la gasho wax kasta ka filanaysa runtii dad badan oo dhaqamo kala duwan leh oo qof kasta waxyaabo gooni laakiin inta ugu badan gabdhaha Soomaaliyeed marka tiraahdid hadaan rabno inaan isku guursano hal su'aal ka horkeenayaan oo hayla guursan dumarku waa dhibaatada haysatay intaas badan hayla guursan sabab ilaahay afar u ibn markaan waxay leedahay hayla guursan oo isku agaboobayna يعني اسكو أجابوينا وحي كلها هاي وحكلا الدنيا بيلها إيكن هدارت لكن جورها إلى جورسن وحسنا معها يعني قفك أسوء إسكاكينا وإحنا يجرى قفك دبي عاديا إلهي سبحانه وتعالى وأبوري ودونا إنه يعني السماية مركب وحنا إلى هذا صالحان أبينا واحد سماين الساعة وأنا تقول يا كات قبلها ودكتور سومالي ده مركب كوباد أول كل سبرانا وإسقر حنيان ولا سقضيا سوق وشديا ما ننتص ما لها وحواي عن معادمة لكن مركي ده كوباد لا ده ده لا بدل لا فهمتي وحواي قبل يسبدل الساعة وحسب باين إلى حد وحيوان دونا إن دراسي مركب faylkii waxaan ku jira kiwdi guurka wadadii loo qaaday marka waxaan rajeynaa inaan wax wanaagsan helo waa tahay waxa laga yaabaa hadda kun qof hadaad wado hal u noloshaada inay hammi ka leedahay aadiya qofkaasi ma jirtaa balama aad u qaaday oo waliga hadana aadan ugu bixinin oo ah inaad la guursaneyn dumarka maseerka ama dhibaatada ugu badan ay qabaan laga daba keenida aad bay u neceb yihiin aadiya marka ma ku jirtaa balantaas inaadan saddexda daaqada ka tooreyso halkaas aakhir ila awal hal wax kastaba adduunyada wax kastaba dawladdan waxa kala celinaya dastuurka waaye yani xayawaanadana kala duurka ku nool yani waxay ku dhaqmaan cilmiyo u gaar ah oo ay isku bini aadamkuna saas way hada gabadha waxa way waxa dhiganaysiin sharciyo idin gaar ah hadaysan kula gursanaynin waa inay danahaada gaarka iyo waxyaabaha gaarka la kigaada ay ku qaadato laanahu dadka ma sinno gabadha waxay leedahay dabeecado gooni ah oo xun anina waxa leeyahay dabeecado gooni ah marka budo qabi iyo biyo qabo isku baahan sideen u wada noolaa karnaa